ninbaa xiniinta lagaga dhex saaray saldhigga dhexdiisa qaar baa isha laga riday midna anaaba arkayo inan miskiin oo saraakiilaag la dhacayso. xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa uu wajahayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee waadka waxaana xilligan lagu fasaxay ciidamada ammaanka iyadoo la sheegay in laga mamnuucay hoolka baarlamaanka uusan imaan karin waxaana muuqata in xildhibaanadu ay ka doodi karaan sidii xasaanada looga xayuubin lahaa xildhibaan maxamed abiib oo muddooyinkii la soo dhaafay buuq fara badan ku furay golaha wakiilada dhinaca kalena lagu eedeeyay inuu habeenkii xalay ahaa qayb weyn ka qaatay buuq lagu furay xaflad loo qabanayay ilaahay u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland kaasi oo ahayd xaflad lagu xusayay taariikhdiisa iyo waxqabadyadiisii muhiimka ahaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay xildhibaan maxamed abiib ku eedeynaysaa inay adeegsanayso xisbiyada mucaaradka waliba xisbiga wadani oo hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro kaasi oo ka tirsan yahay maxamed abiib waxayna sheegayaan Cabdiraxmaan Ciro aan wax dan ah ka lahayn mustaqbalka siyaasadeed ee xildhibaan maxamed abiib inuu ka dhigtay dubbo uu ku garaaco darbiga baarlamaanka Somaliland waxaana muuqaaladan ay ka mid yihiin muuqaalada laga faafiyay xildhibaan maxamed abiib oo ka dhex dagaalamaya hoolka baarlamaanka Somaliland iyo fagaarayaal kale oo muhiim ah. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Ali Xamed Jibriil oo saaka shir gudoominaya kala fadhiga golaha wakiilada Somaliland ayaa ciidanka booliska amar ku siiyay in golaha laga saaro xildhibaan u jawaabo waa sida uu hadalka u dhigay balse jawiga golaha ayaa sidan isu bedelay xildhibaanka wasiirka golaha